الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولا ليال ما دام أن كتبت الشيخ ابن القيم إلا صدح كتاب سوق عدني كتبت ابن القيمنا انت بدن وحي كهدلان قلوبتا دادك أهل المعاصي يذنوبتا بدن iyo inay dadka takhwiif iyo cabsi gelin badan runtii ay ku abuuraan marka maanta insha Allah taala ama caawa oo 29 ama 29 bishii Ramadaan insha Allah taala inoo soo galayso darsigii horena inoo dhamaaday baan rabaa kelimad insha Allah taala mu'minka iyo qofka muslimka Ilaahay aakhira waxa uu dhigay khayr tirada badan inaan waxoogaa ku nasanno insha Allah taala kulligeena waxaanahay dadka wada dunuubta badan ilaahay cafigiisa rabbi baynu leenahay raxiim cafuw ghafuur dunuubta dhaafaynu leenahay allah subxaanahu wa tacaala huwa yutam'in calayna isagoo dejinaya dadkiisa muslimiinta iyo muuminiinta addoomihiisa yaa wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم dadka addoomadayda xadgudbay dunuubtoodu badatayow ha quusanina ilaahay raxmadiisa ha ka quusanina rabbi dunuubta dhaafaad leedihiin shirki waxaan ahayn oo dhanna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu dhaafaa markuu rabbi sheegay suuratul furqaan aayaadka cibaaduraxmaan saddexda dunuub ugu waaweyn taqriiban markuu alla ka hadlay والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا markii sidaa loo dhigay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexda dembi waa shirkiga iyo qatliga qof la dilay iyo kan saddexaad oo zinada saddexda markuu sheegay qofkuna cadaab inuu la kulmi uu sheegay ayaa wuxuu ka daba keenay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما dadka hadday toobad keenaan oo dunuubta waaweyn xitaa ay ka toobad keenaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xitaa sayi-aadkoodii buu wanaag buu ugu bedelayaa yubadilu allahu sayi-aatihim xasanaat waxay yidhahdeen ahlu cilmigu ma aha keliya in dembigaagii la dhaafayo bal opposite-ka ama bedelkiisii oo khayr abaa lagu siinayaa allahu akbar ku bishaaraysta inuu rabbi leeyahay 100 raxmadood buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay sidoo xadiis saxiixa uu ku sheegayo alla wuxuu leeyahay 100 raxmadood hal raxmad keli buu u soo dejiyay adduunka jinka waxaa loo qaybiyay jinka iyo insiga bahaa'imta xoolaha alhawaam waxyaabaha xasharaadka dhul socodka waxaas oo dhan waxa loo qaybiyay waa hal raxmad wuxuu yiri taasay dadku isugu naxariisanayaan taasay isugu dhimrinayaan waxataa alwuxuush cidla joogta iyo duur joogta waraabaha waxyaabaha markay ilmo dhalaan Soomaalida arag inay lugta sida qoobkooda ugu dul warwareejiyaan ma saarayaan maroodiga ilmihiisa markaad fiiriso ma ku joogsanayo libaaxu ku joogsan maayo saasoo lugta u dul marinaya waxa ugu naxariisan wuxuu yiri waa raxmadii halkii la soo dejiyay 99 raxmadood rabbi wuxuu u haystay qiyaamada inuu addoomihiisa ugu naxariisto allahu akbar waa raxmad weyn insha Allah tacaala qof muslimaba inuusan ka qadaynin ayaa dareemaysaa xadiidkii rasuulkana shaahid u man qaala laa ilaaha ila allahu nafacatu yowman min addahri laa ilaaha ila allahu qofka ku dhinta maalin unbay anfici doontaa waxataa naar iyo hadduu dhib soo maro ku waari maayo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala rabbina fi suurati al-acraaf ayadda 156 waa kii lahaa waraxmatii wasicat kulla shay raxmadda ilaahay wax walba iyada qaalib ka
cadaabkay qaalib ka tahay, ciqaabkay qaalib ka tahay, dhinaca raxmadda ayaa rajaxnaanaysa insha allah. qisadii almar-ah oo dadkii lasoo qafaashay, rasuulku markuu arkay haweeney dadka dhex ordi oo marba ilmaheedii baa ka dhumay, ilmahay aragtay beerka ku dhejin, markaasaa wuxuu ihi ma u malaynaysaa tan ilmaheedii hadday helayso inay naarta ku tuuri lahayd? waxay yidhahdeen maya yaa rasuulallah, iyadoo awoodda kumay tuurteen. wuxuu ihi lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha. ilaahay rabbi baa uga naxariis badan haweenaydan se ilmaheeda ugu naxariisan, allah baa addoomihiisa uga naxariis badan. raxmadda ilaahay walaalayaal waa midda jannada lagu galo. qofna camal uu sameeyey janno kuma galo ilaa an yatagamadahu allahu biraxmatih, inuu ilaahay raxmadiisa qofkaa dhumbiyo uu siiyo ma ogiye, marka janno laguma gala camal la shaqaystay. marka laakiin asalku waa raxmadda ilaahay baa jannada lagu galaa. ilaahay haynoo garto. muminiinta waxaa la rabaa bayna alrajaa waalkhawf inaynu ku noolaano. ilaahay raxmadiisa aada rajayso, jannadiisa aada rajayso, ciqaabtana mar walba iyo cadaabkiisana aada ka baqdo. nabi cibaadii أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ربي سبحانه وتعالى في سورة حجر آيات أفرتني السقال إلا أفرت كنتونات أيولي هي الله سبحانه وتعالى أدومها يقول أشيغ إن إليه ربي غفور أو دنوب تردن رافة رحيم أو نحريستا. ومع ذلك هدنا وحي إليه عذاب كيسنا وكل يسوونه حلقة بقو. إلهي سبحانه وتعالى وحن كوي دي سنين بأسماء الحسنى والصفات العلى جبدي يردمات كبش رمضان بانجوغنا dadka habeen walba waxaa laga xoreeyaa naarta dad tiro badan. ilaahay subxaanahu watacaala inuu naartiisa inaga xoreeyo, rabbina dunuubteenna inoo dhaafo, xadgudubkeenna inoo dhaafo. allaahuma inaka cafuwan tuxibu lcafwa facfu cana. dadka raaliga laga noqdayna ilaahay inagu daro. ramadaankan dadka dembigooda loo dhaafana ilaahay ha inagu daro. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.